kulanto wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu doorka roor galka wararka waxaa maanta kamid ah Moshin laga diyaariyay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka arrin la yaab leh oo ka dhacday degmada xamar Jajab kadib markii halkaasi uu isku dildilay sargaal ka tirsan ciidamada booliiska Somalia caruur tiro badan oo ka soo goosatay dagaalamayaasha al-shabaab isla markaana la sheegay inay wax ku barayeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe maxkamad ku taala magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya oo maanta la hor keenay Professor Saliid oo maalin ka hor ciidamada booliiska ee dalka Kenya ay ka kaxeeyeen guri uu ka deganaa magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya akhbaraadka dibadana waxa uu dooroon midowga Afrika oo hakiyay xubinnimadii Suudaan kadib markii halkaasi ay bateen rabshadaha ka dhacay qodobadaasi qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawada balse inta aan galin qodobadaasi faahfaahsan daawada haddii aad ku cusub tahay YouTube-kan fadlan saar subscribe si aad u heshid warar xaqiiqo ah iyo xogtii ugu dambeysay ee Soomaaliya balse aan ku bilaabo wararka madaxtooyada Soomaaliya wararka laga helayo madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegay inuu jiro Moshin ka dhanaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka kaasi oo ay gadaal ka riixayso madaxtooyada Soomaaliya wali lama og waxa filla Soomaaliya ku qoonsatay muddo taas oo la ogaa in ay siyaasad ahaan isku dhawaayeen Abdul Mudi ayaa dhankiisa laga soo xigtay in uu sheegay inuu ka warhayo Moshinkaas wuxuuna ku eedeeyay madaxweynaha inuu ka dambeeyo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Khadiija Maxamed Diiriye ayaa la sheegay inay si weyn ugu falcelisay Moshinka laga diyaariyay gudoomiye Moshinka Mudi laga keenay ayaa waxa laga yaabaa inuu xiriir la leeyahay ama lagu toonsan yahay Moshin la hadal hayo kaasi oo diyaariyeen baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya laguna soo horjeedo madaxweynaha maamulkaasi filla Soomaaliya ayaana aaminsan in Moshinkaas uu wado Shariif Xasan isla markaana uu kala shaqeynayo Abdul Mudi dama ay yihiin saaxiibo muddo dheer ka soo wada shaqeeyay siyaasadda Soomaaliya si kastaba arki doono waxa uu ku dambeyn doono Moshinka la hadal hayo oo laga diyaariyay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka kaasi oo siyaasadiisa aad ay iskugu dhawaayeen filla Soomaaliya wararka la helayo ayaa waxay sheegayaan in xirada ciidamada ee xaafadda Sheerale ee ka tirsan degmada xamar Jajab ee gobolka Banaadir uu isku dilay sargaal ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliyeed ila xogogaal ayaa waxay sheegayaan in sargaalkan oo lagu magacaabi jiray gaashaanle dhexe Cabdi Cali Seed uu xariga qoorta gashay sidaas inuu isku dildilay isagoona xiran darajada gaashaanle dhexe isla markaana goobtii uu isku dildilay ku geeriyooday dadweyne ku nool xaafadda Sheerale ee degmada xamar Jajab ayaa iskugu soo baxay goobta uu isku dildilay sargaalkan sare oo ka tirsan ciidamada booliiska iyagoona aad ugu naxay isdildilaada sargaalka oo ay wada yaqaaneen wali lama cadeen waxa ku kalifay sargaalkan inuu isdildilo ha yeeshee waxa la sheegayaa in maalmihii la soo dhaafay ay haysteen duruufooyin kala duwan taasi oo ku qasabtay inuu isdildilo dhacdooyinka la xiriira isdildilaada ayaa mararka qaar waxay ka dhacaan gobolada dalka Soomaaliyeed waana dhif iyo naadir ha yeeshee taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed kama hadlin isdildilaada uu sameeyay sargaalkan ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya sargaalkan isdildilay ayaa waxay wararka sheegayaan in ciidamada booliiska ay u yimaadeen gurigiisa isla markaana ay ku wargeliyeen inuu ka baxay guriga maadaama gurigaasi dhawaan la burburin rabo sida ay sheegeen dadka agdhow sargaalka isdildilay waxa la sheegayaa in markaasi ay soo wajaheen duruufo fara badan iyo ka guritaanka gurigaasi ha yeeshee maanta ayuu isku dildilay xaafadda uu ka deganaa xamar Jajab oo lagu magacaabo Sheeler ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa waxa la sheegaa in inta badan ay ka cawdaan dhinaca mushaaraadka isla markaana ay soo wajahdo duruufooyin kala duwan haddaan eegno gobolka Shabeellaha Dhexe warar laga helayo deegaano hoos yimaada magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay sheegayaan in halkaasi ay soo gaareen caruur tiro badan oo al-shabaab ka soo goostay kuwaasi oo la sheegay in al-shabaab ay wax ku barayeen tuulooyin kala qeybiya xadka labada gobol ee Shabeellooyinka caruurtan ka soo goosatay al-shabaab ayaa waxa la sheegay inay ka soo tageen deegaan lagu magacaabo Maseerey oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe isla markaana ku yaala xadka labada gobol sida dadka deegaanka ay sheegeen caruurta ka soo goosatay al-shabaab ayaa waxay joogaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe isla markaana hoos taga magaalada Jowhar ee xarunta gobolkaasi caruurta ka soo goosatay dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxa tirada lagu sheegay inay gaarayaan ilaa 25 kuwaasi oo markii hore al-shabaab ay ka wadeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe
dadka deegaanka oo qaarkood la hadlay warbaahinta ayaa diiday in codkooda warbaahinta loo adeegsado sababo amni darteed ha yeeshee waxay sheegeen in caruurta ay hogaaminayeen xubno al-shabaab hore ugu tirsanaa isla markaana hadda ay keeneen deegaano hoos yimaada magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe xilli shalay magaalada Beledweyne laga dhagax dhigay dhismaha saldhig ay ku shaqeyn doonaan booliiska Hirshabeelle ayaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan waxa uu baaq u diray saraakiisha ciidamada booliiska amisom ee ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in saldhigyada ay hore Beledweyne ugu hirgeliyeen ciidamada booliiska amisom ugu mahadceliyay yeeshe waxa uu ka dalbaday in 4 xarumood ee magaalada Beledweyne ay saldhigyo ka dhisaan sidoo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in ciidamada amisom ay ka sugayaan jawaab degdeg ah isla markaana ay doonayaan in 4 xaafadood laga dhiso saldhigyo ay ku shaqeynayaan ciidamada booliiska maamulka Hirshabeelle waxa uu sheegay in saraakiisha booliiska amisom ee ku sugan magaalada Beledweyne ay hore ugu direen codsiyo kala duwan isla markaana ka maamul ahaan ay ka sugayaan in ay ka helaan jawaabta degdega ah mas'uuliyiinta dawladda Kenya ayaa ku eedeysay Professor Saliid in uu xiriir la lahaa argagixisada isla markaana ciidamada booliiska ay ka soo xireen guriga ka deganaa magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya asaga iyo 3 kale oo ka tirsan xisbigiisa sida ay sheegeen Professor Saliid ayaa in muddo ku noolaa magaalada Nairobi xarunta isagoo la sheegay in halkaasi uu ka dhigo jaamacado kala duwan dawladda Kenya ayaa ku eedeysay Professor Saliid in uu xiriir la leeyahay kooxaha argagixisada Professor Saliid ayaa maalin ka hor waxa laga soo qabtay guri ku yaala magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya halkaasi uu ka deganaa isla markaana ciidamada booliiska ay ka soo kaxeeyeen gurigiisa oo ay ku xireen xabsi ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya Saliid iyo 3 kale oo la xiray ayaa maanta la horgeeyay maxkamad ku taala magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya halkaasi oo lagu dhageystay waxyaabihii lagu soo eedeeyay maxkamadda ayaa amartay in 4 maalin oo kale xabsiga lagu sii hayo asaga iyo 3 kale si baaritaano dheeraad loogu sameeyo ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay maxkamad ku taala magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya Professorkan ayaa ciidamada booliiska waxay ka soo xireen magaalada Nairobi sidoo kale waxa lagu eedeeyay in uu ku dhawaaqay xisbi siyaasadeed maalin ka hor magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya loogu daafuray asaga iyo siyaasiyiin kale dawladda Kenya ayaa u muuqata in cadaadis xoogan ay saarayso siyaasiyiinta ka soo jeeda dawladda Somalia isla markaana ku sugan magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya si xoogaysanaya khilaafka u dhaxeeya dawladda Kenya iyo dawladda Somalia iyadoo dawladda Kenya ay cadaadis xoogan saartay bulshada ka soo jeeda dawladda Somalia isla markaana ku dhaqan magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya hore waxay hakad u gelisay dawladda Kenya duulimaadkii sida tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi iyadoo ku amartay in diyaaradaha ka imaanaya magaalada Muqdisho ay soo maraan magaalada Wajeer si loo baaro ama loo xaqiijiyo amnigooda ayay ku dhawaaqday dawladda Kenya hase yeeshee waxyaabo badan oo ka soo baxay dawladda Kenya ayaa dawladda Soomaaliya ilaa hadda ay ka jawaabeen hase yeeshee waxay amar soo saartay in haddana siyaasiyiinta ay ka mamnuuci doonto dalkeeda oo ka soo jeeda dawladda Soomaaliya ama ka soo jeeda wadanka Soomaaliya hase yeeshee waxay xir ku bilowday siyaasiyiin kala duwan oo in muddo ku noolaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya maantana maxkamad ayaa la horkeenay waxaana ka mid ah siyaasiyiintaasi Professor Saliid oo caan ka ah magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya tan iyo markii xilka laga dhigay madaxweynihii Suudaan Umar Xasan al-Bashir ayaa dalka Suudaan waxa ka dhacaya ilaa iyo haddana ka socdo rabshado aad u xoogan oo ay dhigayaan dadka ku nool wadankaasi hase yeeshee waxa qaati kala taagan militariga dalkaasi iyo dadka shacabka ee mudaharaadyada dhigaya beesha caalamka ayaa ku baaqday ama ugu baaqday shacabka reer Suudaan in ay joojiyaan mudaharaadyada ay dhigayaan hase yeeshee mudaharaadyada ayaa waxay ka socdaan magaalooyinka aad ku waaweyn ee wadanka Suudaan isla markaana militariga wadankaasi ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay xabadan nool u adeegsadeen dadka mudaharaadyada dhigaya reer Suudaanka iyadoo mudaharaadyadaasi ay ku dhinteen dad fara badan kuwa kalena ay ku dhaawacmeen hase yeeshee kulan ay yeesheen midowga Afrika ayaa waxa lagu sheegay in xubinnimadii Suudaan ay joojiyeen isla markaana sababtana ay kaga dhigeen rabshadaha xoogan ee ka socda wadankaasi sideen u hadlay midowga Afrika ayaa sheegay in xubinnimada sababta ay u joojiyeen ay tahay rabshadaha xoogan ee ka socda wadankaasi isla markaana ay saari doonaan guddi dhexdhexaadin ka sameeyo dadka shacabka ay mudaharaadyada dhigaya ciidamada militariga wadanka Suudaan waxa hadda xoog ku qabsaday military awoodda wadankaasina waxa gacanta ku haya military
maanta u dambeysana waxa wadankaasi gaaray ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed isagoo kulan la qaatay sargaalka ugu sareeya wadankaasi oo haatan talada gacanta ku haya waxaana la sheegayaa kulanka Abiy Ahmed inuu halkaasi u tagay dhaxdhaxaadinta dadka shacabka ah iyo ciidamada militariga oo bilooyinkii u dambeeyay halkaasi isku hayay guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaya daawadayaal warkii aad ka daawanayseen xulka wararka intaas ayaan kusoo gabagabeynaya daawadayaal intaan warkaan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo